qisadii cajiibka ahayd ee dhaxmartay boqorkii kibirka badnaa ee Qayruus iyo laba nin oo magaalada caanka ahaa oo wadooyinka dabarsan jiray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibada ku xiran saatuuban ku soo dhawaada qiso cajiib ah. Qisadani waxay dhacday waagii reer bin Israa'iil waxaana ay qusaysaa boqor lagu magacaabi jiray Qayruus iyo laba nin oo magaalada caanka ahaa oo dabarsan jiray wadooyinka. Boqorka lagu magacaabo Qayruus waxa uu alla ku maneestay maal iyo mansab intii uu yeelan karo qof bani aadan ah, balse nasiib daro maalkii uu alla siiyay wax uu ka qaaday kibir iyo islaweyni iyo inuu u awood sheegto ummadda masaakiinta ah, qaarna uu dilo qaarna uu adoonsado. waxa uu lahaa ciidan fara badan, ciidankaasoo uu u adeegsan jiray inuu ku cabsi geliyo dadka masaakiinta ah ee kula noolaa magaalada. dadka magaalada aad ayay uga cabsan jireen boqorka Qayruus ilaan waxa uu ahaa nin shar badan. maalin maalmaha ka mid ah boqorkii waxa uu dareemay madax xanuun zaid ah, waxana uu la tashtay dhakhtarkiisa. waxa uu ku yiri, dhakhtarow waxaan dareemayaa madax xanuun zaid ah oo aan weligay dareemin. dhakhtarkii waxa uu ku yiri, waxa kugu batay nasiinyada iyo fadhiga, waa in aad samaysaa socod dheer subaxii hore. boqorkii waxa uu ku yiri, haddii aan sameeyo socodkaas maraysan doonaa. dhakhtarkii waxa uu ku yiri, haa, waa aad bogsan doontaa. maalinkii xigtay boqorkii waxa uu bilaabay socodkii. nasiib wanaag wadada uu ku bilaabay socodka waxaa fadhiista laba nin oo dabarsata oo laga yaqaan magaalada oo aad sabool u ahaa. labadii nin markii ay arkeen in boqorkii wada ay u noqotay meeshii ay ku dabarsan jireen aad ay u farxeen. labada nin ee dabarsata way isla dabarsan jireen, balse waxay ku aragti kala duwanaayeen qaabka dabarsiga. mid waxa uu dhihi jiray, rabbiyow waxaad ugu arsaaqdaa nimcooyinkaagii faraha badan iyo qasnadahaagii aan dhammaan. halka midkii kale uu ku ducaysan jiray, rabbiyow anna waxaad ugu arsaaqdaa nimcooyinka aad siisay boqorka. maalin maalmaha ka mid ah boqorkii ayaa dhigaystay hadalkii labadii nin waana uu maqlay. waxa uu go'aansaday in uu abaal mariyo midka ku ducaysta, ilaahayow waxaad wax igu siisaa nimcooyinka boqorka. boqorkii maalinkii xigtay waxa uu soo diyaariyay digaag si fiican loo soo dubay iyo 2 dirham. waa uu soo qaaday, waxaana uu la yimid labadii nin ee dabarsanaysay. midkii dhihi jiray, rabbiyow waxaad igu arsaaqdaa nimcooyinkaagii faraha badan iyo qasnadahaagii aan dhammaan. waxa uu siin jiray 2 dirham. halka midkii kale ee dhihi jiray, rabbiyow anna waxaad igu arsaaqdaa nimcooyinka boqorka, waxa uu siin jiray asna digaagadii si fiican loo soo dubay. 10 maalin ayuu sameeyay arrinka, oo maalin walba markuu soo maro wadadii midna waxa uu siin jiray 2 dirham, midna waxa uu siin jiray digaagii si fiican loo soo dubay. maalinkii 10aad waxa uu kor yimid labadii nin ee dabarsanaysay, waxaana uu kor istaagay ninkii oran jiray, rabbiyow waxaad igu arsaaqdaa nimcooyinka aad siisay boqorka. waxa uu ku yiri, maskiinka kanow miyaanan kaa dhigin nin taajir ah. ninkii saboolka ahaa waxa uu ku yiri, maya, weli sabool ayaan ahay, waana gaajaysanahay. boqorkii ayaa ku yiri, oo maalin walba soo kuma siin jirin digaag si fiican loo soo dubay? waxa uu ku yiri, haa. boqorkii wuxuu yiri, maalin walba digaaga aan ku siin jiray waxaan kuu soo dhexgelin jiray min 10 diinaar oo dahab ah. hadda waxaad haysataa 10 maalin oo min 10 diinaar oo dahab ah, waxaana aad ka mid tahay tujaarada magaalada. ninkii saboolka ahaa ayaa yaabay, waxaana uu qabsaday madaxa. boqorkii ayaa ku yiri, war maxaa ku helay? ninkii saboolka ah waxa uu ku yiri, maalin walba digaaga aad siisid waxaan ka iibsan jiray saaxiibkaygii ee aad siin jirtay 2 dirham, waxaana aan ku bedelan jiray 2 dirham, halka aan siin jiray asna digaagii dubnaa. boqorkii ayaa ku jeestay ninkii ku ducaysan jiray, rabbiyow waxaad ugu arsaaqdaa nimcooyinkaagii iyo qasnadahaagii aan dhammaan. waxa uu ku yiri, adiga hadda maxaad haysataa? ninkii saboolka ahaa waxa uu ku yiri, hadda waxaan haystaa 100 diinaar oo dahab ah, magaaladana waxaan ka iibsaday guri, ganacsina waa aan samaystay. haddaba waxaan ka mid ahay tujaarada magaalada. waan iska dayn lahaa dabarsiga, balse waxaan sugayay sheekadaani meesha ay ku dhammaato. boqorkii inta uu istaagay marna uu fadhiistay ayaa waxa uu yiri, haddaba waxaan ogaaday in wax walba ay ka weyn yihiin qadarta Rabbi. anaga waxaan la doonayay taajirnimada ninkii ku ducaysan jiray, rabbiyo ugu arsaaq nimcooyinka boqorka, halka uu allana
taajirnimada uu la doonayay ninkii ku ducaysan jiray rabbiyo waxaad ugu arsaaqdaa nimcooyinkaagii faraha badan iyo qasnadahaagii aan dhammaan boqorkii waxa uu yidhi haddaba waxaan qirsanahay rabbi boqorkii inta uu yaabay ayuu gacmaha kor u taagay waxaana uu yidhi rabbiyo waxaan geystay dulmi badan awoodii iyo maalkii aad isiisayna waan ku kibray balse maanta waxaan arkay awood walba in ay ka sareyso awooddaadii laga bilaabana maanta waxaan qirsanahay in aad tahay rabbigay waxaana aan qirayaa in aad tahay rabbigii keliya ee mudan in la caabudo boqorkii meeshii ayuu ku soo islaamay saaxiibayaal muuqaalka laag inoo saarsiina sheergarey kuna soo biir janalka saasuuban ee subscribe inoo saar waad mahadsan tahay